siyaasadeedka xaqso ayaa maanta munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday xafiiska dhexe ee uu ku leeyahay magaalada Oodweyne kusoo bandhigay 17 musharax oo u tartami doona doorashada golayaasha deegaanka ee degmada Oodweyne. Munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Xaqsoor ee gobolka Daadmareed, gudoomiyaha xiriirka gobolada ee urur siyaasadeedka Xaqsoor, gudoomiyaha abaabulka iyo taageerayaasha ururka, gudoomiyaha xiriirka gobolada ee urur siyaasadeedka Xaqsoor Iid Jiciirow Axmed oo ugu horreynba halkaasi ka hadlay ayaa u mahad taageerayaasha soo buuxdhaafiyay madasha xildhibaanada sharafta leh ee isugu jira rag iyo dumar ee isu soo taagay musharaxnimada iyo tartanka golaha deegaanka. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu Ilaahay kuwa guuleysta Ilaahay ka dhigo dhamaantood in ay noqdaan dadalkooda iyo gobolkooda ballaaran ee gobolka weyne Daadmareed dadkii horumar gaarsiin lahaa wuxuu qaban lahaa ee ka nixi lahaa ee jecel badani ka gali lahayd in Ilaahay ka dhigo ayagana intii karaankooda ay dadaalaan ba kula dardaarmaya uga qayb qaadan lahayn horumarkiisa iyo wadooyinkiisa iyo waxqabadkiisa diyaar baan urur ahaan aan u nahay anagu gobolka. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka Xaqsoor ee gobolka Oodweyne Cabdiweli Maxamed Guleed oo munaasabadan ka hadlay ayaa ku dheeraaday taageerada uu ururkani ka haysto gobolka. Yaasmiin Maxamed Cabdi oo kamid ah haweenka ka sharaxan urur siyaasadeedka Xaqsoor degmada Oodweyne ayaa faahfaahin ka bixisay haddii ay soo baxdo wixii ay u qabanayso bulshada. haweenka waxaanu doonaynaa inaanu kor u qaadno degmada Oodweyne. waxaanu doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo albaabada xiran ee xafiisyadu xiran yihiin dawladaha hoose xiran inaanu furno. waxaanu doonaynaa inaanu furno xafiisyada xiran ee aan cid ka shaqaynin. waxaanu doonaynaa cashuuraha aan cid qaadin inaanu qaadno. waxaanu doonaynaa degmada Oodweyne inaanu wax u qabanno. waxaanu doonaynaa inaanu horumarino aanu gaarsiino degmooyinka iyo gobolada kale. waxaanu doonaynaa in aanu waxqabadkayaga muujino. waxaanu doonaynaa haddaanu nahay haweenka inaanu siisaan codka aanu ku soo saartaan. waxaanu doonaynaa inaanu sidii hore ay idinku xidhnaayeen xafiisyadu inaanu idinka xidhnaanin inaanu wax idin qaban. Gudoomiyaha abaabulka urur siyaasadeedka Xaqsoor Dirisaaq Maxamed Sheekh Muuse oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay musharaxyada u tartami doona ururka Xaqsoor doorashada golayaasha deegaanka. Gabagabadiina urur siyaasadeedka Xaqsoor ayaa noqonaya urur siyaasadeedkii saddexaad ee magaalada Oodweyne kusoo bandhigay 17 musharax oo u tartamaya doorashada golayaasha deegaanka iyo taageerada uu ka haysto gobolkan. Cabdikariin Maxamed Jaamac, Universal TV, Oodweyne.